mas-uuliyiintii ka noqday mowqifkooda ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay afaafka hore ee gobolka Awdal ee degmada Dila iyo magaalada Boorama. Wafdigaasi waxa soo dhaweeyay maamulka gobolka Awdal ka degmada Boorama iyo ka degmada Dila. Oday dhaqameedyo kala duwan waxaana wafdigaasi ku hakadeen degmada Dila halkaas oo xaflad loogu soo dhaweynayo loogu qabtay degmada Dila. waxaana ugu horeyntii xafladaasi ka hadlay garyaqaan Cabdirashiid Nuur ayaa ka waramay ujeedada safarkiisa uu ku yimid Soomaaliland. marka walaalayaal waxaan idiin sheegayaa maanta halkan oo ka cadaynayaa wax badan baan soo maray dhul kala duwan waxaanu garannay danta shacabka reer Awdal inay ku jirto danta Soomaaliland taasaan garannay danta Soomaaliland waxay ku jirtaa danta shacabka reer Awdal asayaan taaganay waxaan diyaar u nahay in midnimada iyo horumarka Soomaaliland sidaan horeba ugu sheegnay saxaafadda aanu ka shaqaynay iyadoo dhammaystiran. Sultan Saleebaan Cali Ismaaciil iyo maayarka degmada Dila Ibrahim Cabdi Xaaji Axmed Miisaan oday dhaqameedyo kala duwan oo munaasabadaasi ka hadlay waxa hadaladoodii ka mid ahaa wafdiga sidaas rag iyo dumar wada socda gacmo furan iyo waxaan ku soo dhaweynaynaa qalbi furan waa dalkiinii waxa u soo noqoteen niyo fiican baad noogu timaadeen nagu yara xamanayeen la xaq baa jirtaan la maanta xaageeray u yihiin oo dawladoodii bay u yimaadeen. Barsaabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayir ayaa ka waramay soo dhaweynta loo sameeyay garyaqaan Cabdirashiid. waxaan leeyahay Rashiid dadkaaga ku jecel bulshadaada ku jecel adigana runtii waxaan ku hambalyeeynaa go'aanka uu qaateen isaga iyo madaxdiisa kalaba ee ay wixii ay markii hore cululubteen ay intay baaris loo tuureen ay qaateen wixii bulshada iyo dadkooda iyo qarankoodaba ahaa. wafdigaasi ayaa loo soo galbiyay dhinaca iyo magaalada Boorama iyadoo dadweynaha kala hadlay khayriyada magaalada Boorama garyaqaan Cabdirashiid Nuur.